دكتور waxaan isweydiin leh markii tacaamulaadka bangiyada iyo bulshada la fiiriyo in qofka akoonka loo furaayo uu dhaho haddaan akoon ka furto deyn ma laysiin ama maalgelin ma laysiin iyada taa ka war sababta waa si fiican in qofka akoonka furanaya shardiyo in wax la amaahiyo waxay noqonaysaa amaah lagu shardiyay waxaan hore u soo hadalay akoonada ay ka furanayaan macaamiishu bangiyada waxa weeye marka si sharciya loo sifeeyo waa amaah macaamilku uu amaahinayo bangiga oo lacagta uu dhiganaya akoon ku shubanaya waxay sifa ahaan ama sharci ahaan tahay amaah qofkaasi uu deyminayo bangiga wati hadaynu ka hadlaynay marka inuu bangiga wax deymiyo isna uu shardiyo anna markay ilo halay deymiyo waxay noqonaysaa deyn lagu shardiyay ama amaahdiisii inuu ka macaashay ama ka faa'iiday isna markiisa in wax la amaahiyo sidaa darteed ma banaana haddii intuu account furto si dabiiciya maalmaha ka mid ah isaga baahdo amaah weydiista bangi dhib male laakiin isku shardisan tahay oo haddii beed mahayo uu yiraahdo macaamilku account furanaya laakiin waxaa shardiya inaydan haddii beed mahayo inaad idinku xilligan amaahaysan markii amaahaysan arrinkaasi ma banaana wallahu subhanahu wa ta'ala